الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تعالى في محكم تنزيله وهو أصدق القائلين: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. إلهي سبحانه وتعالى dumarku wuxuu u sameeyey khaasatan kuwa iimaanka leh miise iyo qiimo iyo qaayo aad iyo aad u weyn. waxaad ka fahmi kartaa waajibaadka ilaahay dusha ka saaray subxaana wa tacaala. waxaad ka fahmi kartaa qiimaha dumarka loo yeelay sida ilaahay u amray subxaana wa tacaala inay ku dadaalaan xirashada xijaabka iyo dharka islaamiga ah. ilaahay asagoo tilmaamaya ayuu yidhi: yaa ayuha nabiyu, nebigaanow, qul liaswaajika, gabdhahaaga waxaad ku dhahdaa, qul liaswaajika wa banaatika iyo wa nisaa'i almu'miniin. xaasaskaaga la hadal, waxaad la hadashaa gabdhaha aad dhashay, waxaad la hadashaa gabdhaha mu'minaadka ah ama wiilasha mu'miniinta gabdhaha u jooga dhammaan oo amar sii. waxa la amray ma aha walaalayaal inay dirca qaataan. waxa la amray ma aha walaalayaal inay isqaawiyaan. waxa la amray ma aha inay tabaruj iyo bannaanbax sameeyaan. waxa la amray ma aha inay kalaabyada iyo meelaha aroosada ka ciyaaraan. laakiin maxaa la amray? yudniina calayhinna min jalaabiibihinna. is-astura oo isqariya. waayo gabdhuhu waxaa lagu tilmaamaa waxa ugu qaalisan bay ka mid yihiin ee adduunka jooga. waxyaabaha aadka loo jecel yahay ayay ka mid yihiin ee adduunka jooga, si uusan nin kasta si sahla u helin, si uusan nin kasta gacanta ugu taagin, si qof kasta uusan ugu hanqal taagin ayaa waxa qaaliga ah ee dhaymanka ah ee dahabka ah meel asturan baa la geliyaa. sidaa darteed dumarka islaamka ah waxa uu ilaahay ku sharifay inay jalaabiib qaataan. waxa uu amray inay xijaabka islaamka labistaan. waxa uu amray inaysan iska dhigin badeeca raqiis ah. walaalayaal, sida la fahmi kara maanta waxaad arkaysaa qaawanaashii bay wax fiican u maleeyeen, qaabdaradii ayay u maleeyeen wax wanaagsan. wax walba oo rabbi idin amray qiimahiinaa ku jira, war sharaftiinaa ku jira. gabdhaha muslimaadka u isxijaaba, war ilaahay ka cabsadee jalaabiibta qaata, war ilaahay ka cabsadee is-astura, war ilaahay ka cabsadee amarka ilaahay qaata subxaana wa tacaala. nebiga sala allahu calayhi wasalam laba qolo ayaa imaan doonta gadaashay buu yidhi. laba qolo ayaa imaan doonta aakhiru zamanka. qoom koowaad wuxuu ku tilmaamay dad xaqdarra ku socda. waxay wataan guruumo iyo ulal aad u mooda saynta lo'da oo kale. dadkay ku garaacaan oo xaqnimay ku garaacaan. magacoodu waa magac ka mida magacyada naarta suu nebigu tilmaamay sala allahu calayh wasalam. subaxii markay rawaxayaan carro allay ku baxaan, markay soo caraawayaan galabtiina saqad iyo xanaaq allay ku soo noqdaan subxaana wa tacaala. qoomkaasi waa qoom macruufahoo la yaqaano. qoomka labaad rasuulku wuxuu yidhi waa nisaa, waa dumar kaasiyaad ah, caariyaad ah, maa'ilaad ah oo mumiilaad ah. sida loo raadinayaa la arkay gabdha 18 jira ah oo kalaab ka tumanaya, surwaal iyo funaanad bay wataan, islaamnimay sheeganayaan, ummaddii nebi moxamed bay sheeganayaan, soomaalinimay sheeganayaan. innaa lilaahi wa innaa ilayhi raajicuun. waa 18 jir, waa 17 jir, waa wax ka sii yar iyo wax markaa ka weyn. waa dumar dhar qaba haddana qaawan buu yidhi nebiga sala allahu calayh wasalam. nimcada allay labisan yihiin, shukrigeeday ka qaawan yihiin. dharjiskooda iyo jasadkooday dhinac banneeyaan, dhinacna way qariyaan. gabdhaa imaan doona ayuu rasuulku dhahay sala allahu calayhi wasalam. waa dhar la'yihiin haddana dhar bay qabaan, dirac bay wadataa, sadrigeeda la dareemi karaa, la sifayn karaa, caddaan iyo madow iyo guduud, wax allaala waxa uu yahay. waxaa la arkayaa silsilada iyo katiinada u xihan,
ودمر نوعاس ددك أيي إيلان أيغنا حقيك إليهين ومدي ليحنيان بوضعي إلى سبحانه وتعالى waxay ka leexinayaan xaqa iyo taacada iyo diinta alle ragii maanta in badan dumar baa fidneeyay waxayna ku fidneeyeen amarka alle qaadan waayeen waxay ku fidneeyeen xijaabkay labisan waayeen waxay ku fidneeyeen catar iyo barfuun ay banaanka la soo baxeen waxay ku fidneeyeen hadal jajaban oo aad iyo aad u jilicsan waxay ku fidneeyeen wax alla wixii cadaab alle lagu heli lahaa subxaanahu wa tacaala dumarow in badan xishooda war dumarow xaqii taacada alle ku dadaala mujtamaca dumar baa laga fiiriyaa hadday hagaagaan mujtamacu waa hagaagaa dumarku hadday xumaadaan mujtamaca intiisa kale way xumaadaan mucaawiya ibn abi sufyaan baa mimbarka nebiga ku istaagay baashaan burukaday dumarku qaataan buu gacanta ku qabtay wuxuu yidhi ahlulmadiina aaway culimadiini war aawa dadkii xaqa dadka gaarsiinayey war aawa dadkii diinka ilaahay dadka gaarsiinayey baashaan markay dumarku yeeshaan ayaa la halaagaa rasuulkuna xadiis ayuu ku yidhi adduunku waa macaan yahay macaanka carabkaa jecel saad la socotaan adduunku wuu cagaaran yahay cagaarkana indhahaa jecel labadaba adduunkaa lagu soo kulmiyey ilaahay khaliif ayuu idinkaga dhigay asagoo raba inuu eega kayfa tacmaluun saad ugu camal qabanaysaan fattaqu ddunyaa wattaqu nnisaa warka cabsada adduunka dumarkana ka cabsada fidnadooda aad iyo aad uga cabsada war qabta in badan oo guryaha geliya war in badan u diida tabarrujkii safarka maxram la'aanta war in badan ha u ogolaanina inay bannaanka u soo baxaan ayagoon xijaabnayn war wax badan ha u ogolaanina inay meelaha fisqiga aadaan war wax badan ha u ogolaanina waayo fidno tii ugu horaysay ee reer bani israa'iil ka dhacday dumarkay uga timid way isqaawiyeen sida kuwayna maanta isu qaawiyeen maxalla ayay samaysteen sida kuwayna maanta u sameeyeen aroosyay ka ciyaareen sida kuwaynay uga ciyaaraan buraanburo iyo waxaan qiimo badnayn bay diin ka dhigteen say kuwayna diin uga dhigteen in badan walaalayaal aad iyo aad u xakameeya naftiina in badan jalaabiibta islaamka qaata war aayad ilaahay oo magaalada maraysa noqda yudniina calayhinna min jalaabiibihinna oo kursigan ku fadhisa yudniina calayhinna min jalaabiibihinna oo basraacaysa yudniina calayhinna min jalaabiibihinna oo fasal gelaysa ka soo baxaysa yudniina calayhinna min jalaabiibihinna la guursanaayo oo aqalkeeda loo sii kaxaynaayo yudniina calayhinna min jalaabiibihinna oo suuqa ka adeeganaysa noqda walaalayaal in allaala intaad ku dadaashaan xijaabka ilaahay danihiina ku dadaala saad isu qaawisaan baa naarta lidinku qaawinaya saad diinta alla u nacdaan bay jannadu inid nacaysaa saad cadaabka iyo saad xumaanta iyo fisqiga iyo qaawanaashaha u jeclaataan yaa ibliis iyo shaytaan idin jeclaanayaa haddii kale rasuulku intaa wuxuu ku daray waa iilan yihiin xaqana dadkay ka iilayaan warka warrama gabar ziina leh oo qurux leh oon jalbaab wadanin afka gudud marsatay dirac qafiifa ku socota ama surwaal iyo shaati wadata laamiga intay ku soo baxda raggu say noqonayaan walaalayaal soo ma arkin 7 jeer inay gadaal idin soo eegayaan soo ma arkin inay idin fiirinayaan waa maa'ilaad way iilan yihiin dadkiina xaqay ka iilayaan war sabab ha u noqonina ragga inay cadaab galaan war sabab u noqda raggu inay hanuunaan mar allaala marka jilbaabkeeda iyo xijaabkeeda iyo hanaankeeda iyo taacada allay ku dadaalaysa la arko yay malaa'igtu ku faraxdaa xasanaad loo qoraa rabbi jeclaadaa shaytaanku ka cararaa laakiin kuweena maanta shaytaan baa saaxiib la'a war saaxiibnimada shaytaanka gooye xiriirka ilaahay hagaajiya sidaa darteed ayuu rasuulku intaa ku daray waxaad moodaa madaxooda ratiga geela ah ee baadiyaha daaqa kuriskiisa oo kale oo iilan wallaahi inay jannada alla galaan iska daaye xataa carafteeda heli maayaan buu dhahay sala allahu calayh wasalam naag walboon jilbaaban inay janno alla gasha daaye xataa udugeeda heli mayso naagtaan xijaabanin hooyadkeedu waa jahannamo tii xijaabka qaadan weysa alla agtiisa carray ku leedahay tii xijaabka qaadan weysa waxaa dhaxulla looga dhigayaa cadaabka mid allaala midda xijaabka qaadan weysa waxaa tacaam looga dhigayaa dariic iyo zaquum iyo geedaha alla tilmaamay subxaana wa tacaala waxa la cabsiinayo ay adduunka ku cabaysay sharaab buu ahaa laakiin dumarka kale
laakiin dumarka kale ee cadaabka la galay ee ilaahay subxaanahu wa tacaala xijaabkiisii inkiray oo diiday waxa ka yimaadee dheecaan ah kaasaa sharaab looga dhigayaa inna lillahi wa inna ilayhi raajicuun rasuulka sala allahu calayhi wasalam dumarka in badan ayuu la hadlay waxyaabaha uu faray ee uu amray waxaa ka mid ah in xaqa iyo wanaagga lagu dadaalo in diinta ilaahay dhabnimo loo aamino in rabbi subxaanahu wa tacaala laga cabsado khayrka iyo wanaagga in aad iyo aad loogu socdo dumarku in allaala intay xijaaban yihiin bay khayr iyo wanaag u dhow yihiin ilaahay intaa markuu sheegay ayuu yidhi yudniina calayhinna min jalaabiibihinna waxaad iska soo raaricisaan dharka jalaabiibta lagu magacaabo moodeelada maanta soo baxay iska ilaaliya waxaad arkaysaa dhar aan xijaab ahayn oo ay dumarku xijaab ka dhiganayaan way soconaysaa way xijaaban tahay haddana gollonkeedaa bannaan way socotaa way xijaaban tahay horaadyadeedaa la arkaa way socotaa way xijaaban tahay barfuun baa ka soo carfaaya way socotaa way xijaaban tahay say sheeganayso haddana dharkii baa ku dheggan xaaladda noocaas ayaynan dhicin gabar walba oo ilaahay agtiisa khayr iyo wanaag ka rabtay taacada alle ku dadaal waad u jeeddaa nebi muxamed inuu janno leeyahay geli mayso waad u jeeddaa inuu leeyahay arki mayso uduga iyo carafka jannada 500 oo sano meel loo socdaa laga carfiyaa jannada intaasi waa qiimihiina iyo qaayihiina dumarkii maanta qaar baa ololaynaya waxay ku dadaalayaan oo ay u ololaynayaan waxay tahay xuquuqaadkeennii hanala siiyo war haddii ilaahay islaamkaa dhigoodan dibi caabudaynin war haddii laa ilaaha ila allah orahdaadu ay tahay war haddii muxamedun rasuulullah aadan ka tegaynin mar kastoo xayi cala asalaad aad maqashaad salliga ku istaagayso war mar allaala markaad soo baxaysa haddaad jalbaab iyo xijaab ku soo baxayso haddii guriga laguugu asturee odaygaagii la amray inuu bannaanka ka soo kasbo meel allaala meeshuu geli karoo xalaala uu galo qashinka la qaadaayo hadduu kaa qaado bannaanka laguu geeyo waxaad u baahan tahay oo kale maxaa waaye war xuquuqaadka dumarkuay raadinayaan maxay tahay ma in la qaawiyaa ma in xafiis la fadhiisiyaa ma in nin u soo galaa ma inay sirwaal qaadataa ma inay masarka iska dhigtay timaheeda bannaanka keentaa xuquuqaadkay raadinayaan waa intaa war xuquuqaadka allah idin siiyey ma ogtihiin mar hore in laydin aasi jiray war gabar walboo da'daa gabadhaa meesha fadhisaa gaarta waa xilliga ay gawmaha iyo ciyaalku ay soo kacayaan inta god laydin qodaa laydinku duugi jiray ilaahay baa diiday subxaana wa tacaala waidaa bushira axaduhum bilunhaa dalla wajhuhu muswaddan wahuwa kadiim haddii gabar loo dhalo waa xumaanayey wejigiisaa madoobaanayey gabar loo dhalay waxaad mooddaa 7 lacanadood inay wejiga ka saaran tahay dalla wajhuhu muswaddan wahuwa kadiim yatawaaraa min alqawm min suu'in maa bushira bihi bannaanka ma soo baxaya waayo gabar baa loo dhalay wax idinkaga dandarnaa ma jiray wax idinkaga foolxumaa ma jiray walaalayaal aabbihii ku dhalay hadduu ragga iska qariyo aabbihii ku dhalay hadduu iska qariyo dadka hadduusan akhyaarta soo ag fadhiisanaynin hadduusan dadka akhyaartaa ag imaanaynin yatawaaraa waa dhuumanaya waa isqarinayaa xumaantii loogu bishaareeyey laba mid bay ahaan jirtay ayumsikahu calaa huun am yadussahu fi turaab inuu ciidda isaga duugo waxaan xunee dhashay inuu carrada isaga aasa ayadoo nool intaa ka bacdi amase inuu iska haysto ihaano iyo dulli asagoon hadalkiisa la qaadanin labadaa mid ayay ahaan jirtay buu yidhi ilaah subxaana wa tacaala dullinidaa loo dhalay ayuu diidan yahay ayaduu rabaa inuu xabaalaha isaga aaso qaar baa la tilmaamaa intay u soo qubeeyeen ay dar u soo labiseen ay dahab u soo geliyeen godna ay u soo qodeenuu wadaa garkay ciidda ka tirtiraysaa oy leedahay aabbe asna wuxuu u wadaa inuu godka ku rida laa ilaaha ila allah dhaxaasaa alla idinka badbaadiya subxaana wa tacaala surwaalaad u qaylinaysaan oo waxaad u ololaynaysaa in xafiis laydin fadhiisiyo waxaad u ololaynaysaa in dharka laydinka dhigo waxaad u ololaynaysaa inaad baxdaan xaaladdu sidaa ma aha walaalayaal xayaatadan xayaataa ka dambaysa aabbe way tirtiraysaa carradii godkuu qodaayey yaa gerka uga taala
aabba ayadoo lahu qabanaya markaasuu ku tuuraya markaasuu godkii ku ridaya sayxadeedii qayladeedii oohinteeda la maqlaa laa ilaaha ila allah xaaladaasaa ilaahay idinka soo koriyey subxaana wa tacaala waida almaw'uudatu su'ilat tii xabaalaha lagu xabaalay ayaa la su'aalayaa buu yidhi ilaahay subxaana wa tacaala marka la su'aalo gabadhii nolosha lagu duugay aaway kii duugay warkii laga gardarnaa haddii maxkamadda la saaray kii gardarnaa ka warrama say xaaladiisu noqonaysaa intay goorgoorday jalaabiibta tasho walaalayaal waxaan aad uga digaya gabdhaha xijaabka moodeelada wata ilaahay ka cabsada subxaana wa tacaala waa xijaabkii raaska waa xijaabkii kida waa xijaabkii kida wax la dhaha ma jire xijaab waa xijaabka alla soo dejiye subxaana wa tacaala xijaab waa midka ku astura xijaab waa midka aan korkaaga laga arkin xijaab waa midkan kugu dheganayn xijaab waa midaan khafiif ahayn xijaab waa midaan dharka gaalada u ekayn xijaab waa midaan catar iyo barfuun lahayn xijaab waa midda ilaahay uu ku tilmaamay oo yidhi daalika adnaa an yucrafna taasaa ugu dhow in la aqoonsado inay gabar muslimad ah tahay inay gabar xaraa'ira oo xor ah tahay inay gabar ilaahay jecel tahay jalbaabkaa lagu aqoonsadaa jalbaabkaa lagu yaqaanaa jalbaabkaa lagu aqoonsadaa oo lagu fahmaa daalika adnaa an yucrafna falaa yu'dayn wa kaana allahu ghafuuran raxiima ilaahay waa alla dembi dhaaf badan oo naxariis badan maxaa labadaa loo daba dhigay maxaa aayadda labadaa loogu qatimay waa qatin aad iyo aad u qiimo badan wa kaana allahu ghafuuraa alla waa dembi dhaaf badne naag alla la naagtaan xijaabanin oo aan jirkeeda qarinin oo surwaal ama dirac qafiifa ama marag yara garabka saaratee bannaanka ku baxda hadday tawba keenta saacaddan aan joogno ay dawaar laha aado dhar xoog badan oo culus oo shuruudaha xijaabka wata ay labisato ilaahay waa dembi dhaaf badne subxaana wa tacaala la dhihi maayo 20 sano iyo 30 sano jilbaab la'aan suuqa joogtay kaa aqbali maayo xaashaa gillaah ilaahay ma ahan subxaana wa tacaala dembiguuna cafin waana noo dhaafaya wa kaana allahu ghafuuran raxiima waa alla naxariis badan oo dadka aan xijaab ka wadanin aan ku soo dedejinin cadaabka subxaana wa tacaala waad u jeeddaa ayadoo la qaawan yahay ayadoo xumaan lagu jiro ayadoo diintii ilaahay laga tegey ayadoo xaqa iyo wanaagga aan lagu soconayn yuusan haddana ciqaabka nagu soo dedejinaynin war xijaabku waa quruxdiina naag walba say u xijaabataa naarta looga xijaabaa gabar walba say u xijaabataa ilaahay xumaanta uga xijaabaa gabar walba say rabbi uga cabsataa cadaabka looga ilaaliyaa gabar walba say ilaahay taacadiisii diintiisa u qaadatay jannada alla u heshaa subxaana wa tacaala daa darteed baa ragga in badan ixtiraamaan wanaagna ay u hayaan gabdhaha jilbaaban midda diraca qafiif ka wadataa kabaha aan lagu socon karin soo gashatay aad mooda afkeeda waxaan la dayi karin sidii wax dhiig saaran oo kale bannaanka markay ku soo maraysa dhallinyarada gobolka mid ah walaalayaal way dulmiyaan way caayaan dhagax baa laga daba tuuraa qaar baa u fooriya xijaab qaadee bannaanka labiso waa lagu qiimaynayaa saad alla u qiimaysaa laguu qiimaynayaa saad alla uga cabsataa lagaaga cabsanayaa saad alla ugu dhowaataa khayrkii wanaagga lagugu soo dhowaynayaa xaaladaha noocaasa aad iyo aad ha loogu dadaalo rabbina ha laga baqa subxaana wa tacaala ilaahay asagoo noo tilmaamaya xijaabkii qaayihiisa iyo gabadha muslimaddaa sida looga baahan yahay inay ragga ajaanibta uga xijaabato waqul lilmu'minaat yaqdudna min absaarihinna waxaad ku dhahdaa gabdhaha mu'minaadka ah ee iimaanka leh indhihiinna laaba say indhahooda u laabaan war xibinkiinna tarankaa ilaaliya ku dheh say u ilaaliyaan buu dhahay ila subxaana wa tacaala indhihiinna laaba way laabi doonaan sababtu waxay tahay hadal alle iyo amar alle unbay raadinayaan wayaxfadna furuujahunna ku dheh farjiyaalkiina ilaaliya say u ilaaliyaan walaa yubdiina ziinatahunna ilaa maa dahara minhaa cawraadkiina ha muujinina war bannaanka ha soo dhigina ilaa inta muuqata maahane war inta muuqata maahane qolaa waxay tiri inta muuqata waxaa loola jeedaa gabadhii jilbaabnayd oo xijaabnayd oo ayadoo dhan aan la arkayn ayaa fiicneed in la sii qariya haddana laakiin ma qarsoomaysa soo maaha sidaa ha ku socoto waa waxay dabayli timaaday kor u qaaddo
ووجهك يا جعمها قفض ميل أمبوك توري حالة ولا ليال آديات وقددال عوراتك إنها موجنين إلا أنت موقت ماهاني سيدا حيوانك أوكالي بنانك أمران مانتا ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر بني آدم وان كراميني بحرك إيا برقان كو حنبارني بوضا إلهي وان أرزقني طيبات كي شيالك فيعا أيام وحكا أرزقني وحان كفضلني وحبضا وحان خلقني كمدأ ورحيوان كفيري ولا ليا أيغو عوراتكو دو في ذي ببنانك بحان maxay dhaantaa gabadha gacanteeda banaanka soo dhigtay rida banaanka maraysa maxay dhaantaa midda sadrigeedii laabteeda furtay rida banaanka maraysa maxay dhaantaa midda lugaheeda iyo shanyaalkeeda iyo luga dheertooda dhammaan banaanka dhigay rida banaanka maraysa aaway karaamadii aaway sharaftii aaway qiimihii aaway wanaagii aaway sharaftii ila subhanahu wa ta'ala u sameeyay intaasoo dhan dumarka maanta way dayaceen walaalayaal hadayacina wallahi waalidinka sheekaysanaya in badan heblaayaan arkay heblaayaan saayeelay heblaayay saa noqotay subhanallah sidaa darteed dumarka bacdamu ilaahay dayman wax ka qaalisan ka dhigay waxay iska dhigeen qashin qubka wax yaala maanta waxay iska dhigeen qashin qubka wax yaala naxay diinta islaamka u tirin nin alla ninka raba inuu gabar guursado ha iska soo eego waa qarnaashay qarsoonaayeen waa faa'iidadii qiimaha ilaahay siiyay laakiin maanta wuxuu leeyahay maxaan ka eegaa waaba aqaanaaye maxaa ka fiiriyaa waaba u jeedaaye baridinka isyeelay haddaad isqarisaan oo taacada alla ku dadaashaan alla darti aad u xijaabataan wax badan oo khayra idin hagaagaya wax badan oo sharana ilaahay wuu idinka badbaadinaya subhanahu wa ta'ala bacdamay xaaladu sidaa tahay walaalayaal ilaahay asagoo sii tilmaamaya ayuu yiri awraadkiina هموجننا إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن خمرت ودرك واوين وجلابيبتي مروين كعلعلس وركرك صوتورا قربه نكضبالا waxaad ku soo qarisaan jasadkiina oo dhan buu yiri ila subhanahu wa ta'ala kor intaad ka keentaan hoos ha soo aado idinkoo dhan ha idin qariyo ha noqoto wax jasadkiina oo dhan kala gaarayo waasic idin ah wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihinna Aisha waxay tiri ni'ma nisaa nisaa'ul ansar naagaha reer Madiina wallahi dumar bay ku badnaayeen markuu alla soo dejiyay wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihinna maryihiisteen bay isku toltoleen maraweyn baa ka soo baxday maalinta wixii ka dambeeyay hal gabar oo tooda jasadkeeda lama arkin walaalayaal hal tooda ah oo ayaga mid ah maalintay aayada soo degtay qaara habeenkii dhaqda oo subaxii ku soo labista qaara habeenkii dhaqanaya halka baa lagu soo aadaya suuqa oo lagu aadaya meeshay u baahanayeen iyo muhaadaraadka masaajidada wax kale u dambeeya malaha gacantooda lama arkin dumar baa soo xaadiraya salaada subax nabiga way laabanayeen ayagoo ku duuduuban muruudiyo go'ahooda aan la aqoonsanaynin mid kamida sida xadiis tilmaamay armaajooyin baa idin buuxa sanduuqya idin buuxa iyo boorsooyin saadarteed bax fiiri ta ugu fiican ee ugu wanaagsan ee ugu xijaab fiican yaa laga yaabaa qayb kamida in laga arko aaway dharka ilaahay soo nagu cadaabayo soo rasuulku tilmaamay sallallahu alayhi wasallam nimcadii alla hogayay shukrigana way ka qaawayihiin inay amarka alla qaataan bay ka qaawayihiin inay dharka boorsooyinka ugu jiray labistaan bay ka qaawayihiin xaaladu yeesan sidaa noqonin gabar walbo banaanka u baxda shaytaan ayaa badeeca geysta gabar walbo banaanka baxaysay khayrkii wanaaga ku dadaal waligaana ha bixin oo ha u tabarrujin sida ay jaahiliga banaanka u baxaan oo kale xaaladaas uu ilaahay tilmaamay subhanahu wa ta'ala dumarkii saasay markaa ahaayeeno rabbi amray inay jaqumurtooda isku duuduubaan oo ay jarbaha iyo madaxa iyo jasadka oo dhan markaa ay ku daboolaan ha u muujinina awraadkiina ilaa ragga idin qaba maahane ama aabbayaalkii idin dhalay maahane ama ragga idin qaba aabbayaalkood maahane buulada iyo ragga idin qaba aabbayaalkood maahane wiilashii idinka aad dhasheen maahane
ragga idin qaba wiilasha ay dhaleen ay dumarka la soo dhaleen waaye maxramkaagii waaye asaga maahane walaalaha idinla dhashay maahane buu yidhi ilaah subxaana wa tacaala waa wiilasha walaalihiin ah wiilasha walaalihiin ah wiilasha ay dhaleen waa kuwaad eedooyinka u tihiin gabdhaha idinka idinla dhashay wiilashii ay dhaleen waa kuwa aad habaryaaryaalka u tihiin xaaladaasuu ilaah tilmaamaya subxaana wa tacaala ow banii akhawaatihinna aw nisaa'ihinna gabdhaha aad muslimaadka isla tihiin maahane intaa ka badan sharafta kaad raadinaysaan maxay tahay xataa kaafiradda khansiirka cunta ee khamrada cabta ee aan rabbi aqoon jasadkiina loo diidayaa sida ilaahay idin qiimeeyey subxaana wa tacaala gabar iimaan kula leh gabar ammaano kula haysata gabar xijaab kula wadata gabar kugu ag sujuuda gabar qur'aanka kugu aqrinaysa gabar noocaas ah maahan inta kale xataa iska ilaaliya waayo qiimaad ka leedihiin alla agtiisa sharaf ayaad ka leedihiin alla agtiisa axkaamtan buu idinkugu soo dejinayaa xaaladaha waxay tilmaamayaan walaalayaal inaad aad iyo aad u dadaashaan allana ka cabsataan aw nisaa'ihinna aw maa malakat aymaanuhunna aw التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء عيال يرير أو أنك لقرنين عورات كالضمر انتبوا إلهي تلمامي سبحانه وتعالى ولي والسي أجيا مركي حجاب كاقيل الشيء الله حفظي الله إلاليا صعد كاقل كنتروليا ولا يضربن بأرجلهن لغينا دولكها كو قراعنا كبأد مودسي الضمير قول كيس مركي سعوني سقبنا دولك وكدعو ييسيتان مانتا سيدا درتيد بالله شنقرينيا نين والبو دبق سدحادي أفراد سارن داقدو صوفوري سوكو إيغو حالدها سمينينا قاب في عن أسعد ولا ليال حركات كفوشح إسكدايا وعياب فربضا رب سبحانه وتعالى كتاب كيسوكو إنكر إسكا إلالية ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن سلو أغاذا وحا إذن قرصون أو زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون ليبان حجابو كجران إن الليبان تان قركا ملابستي كجرتا إن دس حجابتان بي ليبان تو كجرتا آدياد هلو دلالو ربنا هلا قبقو خيركي وناقنا هلا صعدو دمر ودمر في عن نقضة وردمر نوريقا هالنقنينا وردمر درع قفيفة نوقاتها نقنينا درع دمر متقانا قونوين يساكوين نو لبستها نقنينا دمر نو حجابا أو نو أسطرا أو نو أخلاق له أو نو آداب له أو نو إيمان له أو أنقريا إيقايل اللهين وعيالكو ذا خيركي وناقا كتربية النقضة تاسا الله سبحانه وتعالى إذن كو وناجينا خير فربضنا الله إذن كسين سبحانه وتعالى شرف إي وناقنا أدكو قارسان الدون إيا آخره بعدما حالة صداتها يقف والبا إيا قبر والبا أذنك إذن كمد آها أغاتو حجابكو إنو واجبكو يهي 9 sano ayaa ugu fiican baa yiraahdaa in lagu bilaabo gabadha walow hadda ay jiraan gabdha ka sii yar 9 oo hooyadii jilbaaban tahay muxaadaro u soo socota gacantay uga soo dhagan tahay teeda yar ayadoo jilbaaban waa wax aad iyo aad loogu farxo waa wax ilaahay loogu mahadiyo subxaana wa tacaala dumarku isku mid ma aha qaar baa aad iyo aad ugu nugul aayaadka alle qaar baa aad iyo aad ugu dadaalaya aayaadka alle subxaana wa tacaala qaar ayaa aad iyo aad u jecel muxuu rabbi yiri rasuulna yiri الله عليه وسلم سي أحفظين با الله وحفظ يا آيات قال لي حديث النبي سي خيرك وناق وجد ذالين با إله الدنود وجد ذالا يا سبحانه وتعالى آديات الدذالة ودونك وميل قابا ولا ليال هذا ما أنت إسقاوي سنارتنا لقوق قويه إله سبحانه وتعالى كنوعه دحولها نارت لقاقت لك مويقاقي قريا وحقي مبضا معها أدونك ووح خفيف أدونك ووحير أدونك وميل قابا أدونك ميل بوكو إجيهي ولا ليال آديات الدذالة إلهي كعب صدا خيرك وناقها كدنا عمرنا رسولكينا جعلاده أمركي سفولية صلى الله عليه وسلم رسولكينا حدنا عمرنا آديات قدرية ورئن بدن بو إذن قدرية ورئن بدن بو إذن شرفة حجابك وحاهوس إيمانا يا حشوتك هداد حجابان توضن حشوت لهين ننكستاد قعنت لقليسو كهيلبك قدنا لقا علم كرين كيا يدك قدنا أطحتاق انتهي ككلنا أبقعنت لآذي ستالفتك إذا حجاب معها حجابك حشمت بوليه ولا
walaalayaal sharaf ayuu leeyahay walaalayaal sharaftiisa u hagaajiya ha noqonina dad suuqa iskariim ku cuna ha noqonina dad suuqa ku buuqa ha noqonina dad suuqa waxay doonaan ku sameeya xaaladaha noocaas aad iyo aad isaga ilaaliya waayo rabbi subxaanahu wa tacaala khayrka iyo wanaagga iyo xushmadda dumarka xijaabkaasuu ilaahay dhex dhigay subxaanahu wa tacaala gabadhii xijaabata allaagtiisa sad iyo wanaag ku leh taan xijaabanayna saan tilmaanay dheecaan naareed waa cadaabki waa cabitaankeeda zaquumo iyo geedka dariicna waa tacaamkeeda kor iyo hoos iyo dhinac walbana waa naar ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu tilmaamay adduunku inuu wax yar yahay cadaabka xijaabka rabbi idin amray oo aad qaadataan haddii kulayl waaye iyo waxa aad dhahdaanna naaru jahannama ashaddu xarra low kaanuu yafqahuun kuwa wax fahmaya haddayin jahannama ka xanuun badan buu yidhi ilah subxaanahu wa tacaala wa kaana allahu ghafuuran raxiima waxay tilmaamaysaa xijaabku inuu yahay raxmad inuu yahay qabow inuu yahay khayr inuu yahay nimco inuu yahay sharaf inuu yahay wax aad iyo aad u qiimo badan xaaladaha saasay markaa u jiraan waxaad u ololaysaan oo aad u dadaashaan ha noqoto sidii xijaabka loo qaadan lahaa ee dadaal ha u noqonina yuusan noqonin inaad madaxowdaan yuusan noqonin in wax kale lagu tilmaamo hayuusan noqonin in dharkaa lagaa dhigo wallaahi gabdhaha gaalada gobolka mid ah ayaa waxaa laga soo tabinayaa low nala xijaabi lahaa qaar baa laga soo tabinaya low guryaha nala fadhiisin lahaa qaar baa laga soo tabinaya low raggeena ay bannaanka nooga soo shaqayn lahaayeen qaar baa laga soo tabinaya oo laga soo warinaya low ilaahay subxaanahu wa tacaala sida gabdhaha muslimaadka ah khayrkan iyo wanaaggan uu u amray ayagana saasoo kale loo amri lahaa laakiin aaway kuweeni waxaalaasaa loo hanqaltaagayaa marka dawaarka la aadaayo ee dharka la soo tolanayo harqaalaha gabdhaha gaalada goonadu say u tashaan baa meesha u yaala waxaad arkaysaa gabar fadhisa oo saa u baarbaaraysa gabar u tolan oo gabdhaha nooca imtixaana diinkan haysanin ah habkay u tolatay say u labisatay u labisanayaan say u tolatay u tolanayaan wiilasheena say tan u jaratay u jaranayaan xaaladahaasoo dhan baa la samaynayaa bacdamay xaaladdu saa tahay rabbi ha laga baqo khayrkii wanaaggan ha lagu dadaalo ilaahay subxaanahu wa tacaala wuu noo karaamaynayaa waana noo nimcaynayaa dumarkeena hadday noo wada xijaabtaan xishoodkana ay ku dadaalaan saxyaha iyo sariigtana ee sidii loogu talagalay ay ula yimaadaan rabbina suu amray ay markaa ula socdaan intaa wixii ka dambeeya ayuu rabbi yidhi waqarna fii buyuutikunna guryihiina iska fadhiya waa sida ugu qiimaha badan hadday damacdo ama si arrin timaado waxaa loo baahday inay dan yeelato waxaa loo baahday inay muxaadaro aado inay suuq ka soo adeegatay wixii markaa la mid ah markaasna bannaankaa u soo bixina sida ay jaahiliga u soo baxaan oo kale buu rabbi yidhi salaada ooga sakada hagaajiyoo bixiya rabbi ateeca rasuul ateeca ilaahay khayr iyo wanaag ayuu idin siinaya subxaana wa tacaala dardaarankeena wuxuu noqonayaa xijaabkii jalaabiibta in aad iyo aad loogu dadaalo ربنا لقبق سبحانه وتعالى قبلها مسلمات كأوحن ربي وقبر يا خيرك وناك إنه إلهي وافجيو إنه إلهي جعل يسي حجابك حشوتك تبرجك إنه ربك إلاليو صفرك محرم لعنت إنه إلهي كإلي سبحانه وتعالى إن النقدان قبل خيرك وناقي كد ذالين إلهي سبحانه وتعالى الله ارتقى كبعدنا الجنوين كي سقيمها بدن إلهي هو أبا المريا سبحانه وتعالى وحبضا بن إلهي كبر يا إنت حنوصا عافي ما طام إنه إلهي سيو إنت مرقيسا إنه إلهي مرقتك قاعد سبحانه وتعالى إنت مراد له مرادكooda oo khayr ah inuu ilaahay u sakhira subhanahu wa ta'ala san khayrkan iyo wanaagan ugu kulanay ilaahay jannooyinkiisa firdawsa naciima iimeelaha la midka ah rabbi hanagu kulmiyo allahumma aamiin allahumma aamiin